waxa ay wajahayaan ceeb adduunyo iyo cadaab aakhiro maxaad ka ogtahay gabadha guursatay labada nin misana caruurteeda inkirtay Kamaal Cabduul waxa uu cadeeyay in uu ku qaldamay haweeneydan in la qabo misana shanta caruura dhashay ma ogeen kitaab ayaan ku dhaaranayaa ma ogeen inay tahay xaas la qabo oo shan ciyaal dhashay baaris badan ayaan sameeyay waan seexan kari waayay waxa ii soo baxday in ay tahay xaaska Cabdisalaan 25 sano ayay isqabeen wallaahi kamaanan warqabin mana dareemin inay tahay gabar horay loo soo guursaday way i qayaantay ma aqaan waxaan sameeyo haddaba Soomaalidu waxa ay isweydiinayaan siduu Kamaal ku garan waayay haweeney la guursaday misana caruur dhashay iyo mid aan guurba soo marin oo aan weligeed la taaban Soomaalidu waxa shaki ugu jira arintani marka hore waxaan ka codsanayaa intaan muuqaalkan guda galin inaad ku soo biirto barteeda Facebook ee Cabdicasiis Xali oo aad follow dhaado muuqaalkan aad leeg saarto si uu meel fog u gaaro Hani oo ah gabadha isla guursatay labada nin ayaa hadda wajahaysa ceeb iyo lama arag waxay isaga carartay Turkiga waxay dib ugu laabatay magaaladii ay ka timid ee Sweden sida ay ku sheegtay waraysi ay bixinaysay Kamaal Cabduul markii ay ka dhaqaaqday gabadha uu sheegay isbuucyo ka hor inay tahay marwadiisa cusub hadda waa uu ka carooday kadib markii moobilka ay ka dansatay waxa uu soo bandhigay muuqaal uu ku sheegay in caruur ay dhashay xaasna ay u tahay Cabdisalaan sidaasina uu ku fashilmay information-koodii damiciisu wuxuu ahaa in la geeyo Sweden balse haweeneyda caruurta soo dhashay xaasna u ah Cabdisalaan ayaa ogaatay in Soomaalida oo dhan ay soo jeedaan lana fahmay sidaasina uga carartay Turkiga kuna laabatay magaaladii ay ka timid ee Sweden moobiladeedina bedelatay sida ay sheegtay iyaduba moobilka ay iska bedeshay number cusubna ay qaadatay Kamaal hadda waxa uu leeyahay meel uu kala xariiro xaaskiisii cusbay balse qayaantay marka hore waxaad nala daawataa muuqaalka Kamaal uu ku cadeynayo in ay tahay marwo la qabo gabadhaani iyo sidoo kale gabadhaani oo sheegaysa in ay ahayd marwo qalad uu ka dhacay sixirna uu geystay Kamaal Cabduul balse waxa uu beeniyay in uu sixray gabadhaani niga ma ogeed oo inay xaas tahay ama la soo furay ama ilma ay leedahay ma ogeed wallaahi oo billaahi oo tallaahi aniga ma ogeen sidoo kale sheekadan hadda in aan la soo fadhiisto anoo wax walba xaqiiqsaday waxay noqotay in anaga raadin xogyaal badan rasmi ah haddii ay noqoto gabadha familkeeda